ku soo biir kanaalka sahanka dunida oo subscribe saar haddii aad ku cusub tahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Awoodda eebbaweyne waxay ka muuqataa abuurkiisa aadanaha ahayd. Qofka bini'aadinka ah wuxuuna aad u xiiseeyaa sidii uu ku ogaan lahaa sida qaybaha jirkiisa ay u shaqeeyaan iyo doorkiisa ku aadan horumarinta cilmiga sayniska iyo caafimaadka iyo badbaadinta nolosha malaayiin bukaan ah. maantana insha Allah waxaan kaaga warami doonaa xaqiiqooyin la yaab leh oo ku saabsan jirka bini'aadinka. qofku aroortii markuu uu ka tooso hurdadu waa uu ka dheer yahay sida uu ahaa fiidkii hore intaanu seexan. dhabartu waxay ka kooban tahay 33 lafood oo midba midda kale ay ka soocan tahay. inta uu qofku ku guda jiro jiifka ama hurdada wuxuu dib u soo buuxiyaa dareerayaashii ka lumay. taasina waxay horseedaysaa inay korto carjawda, taasoo sabab u ah inaan helno 1.5 sentimitir subax kasta. laakiin maalintii culayska aynu qaadayno in uu noo keeno boqolkiiba inta dheeriga ah inaynu lumino. inteena badan waxaan ognahay in caloosha ay ku jirto aashito aad u adag oo loo yaqaano aashitada caloosha ama dheefshiidka ama digestion system. laakiin ilaa heerkee ayay korayaan dheefshiidkani? aashitadani waxay ka kooban tahay hydrochloric acid, potassium chloride iyo sodium chloride. mana kaa qarinayo in isku dhafkan uu aad u xoogan yahay, waxayna aad u burburiyaan cuntada iyo wax walba. laakiin alla ayaa mahad iska leh maadaama ay aashitadani caloosha waxyeelo u geysan. laakiin sidee bay u waxyeeleyneen? sababtoo ah si fudud ayay unugyada caloosha isku cusboonaysiiyaan 3 maalinba. unugyadu waxay soo saaraan lakab xuub ah oo dheecaan leh oo caloosha ka daboola wax walba kana ilaaliya. sidaas darteeda aashitadani waxyeelo ma gaarsiin karto. kelyuhu waxay ku yaalaan daloolka caloosha, micnaha dhinacyada lafdhabarka. dhererka halkii kelina waa 12 sentimitir, culayskooduna waa 150 garaam. inkastoo ay saas u yar yihiin haddana waxay la falgalaan ama ay la tacaalaan tiro aad u badan oo dhiig ah oo ku soo qulqulaya. celcelis ahaanna waxay la tacaalaan 1.3 litir daqiiqadiiba. halkii kelina waxay ka kooban tahay 1 milyan oo unug ah. si kale haddii loo dhaho milyan oo miirayaal ah si loo sifeeyo loona nadiifiyo dhiigga si isdaba joog ah. sidoo kale kelyuhu wakhtigiiba waxay ka takhalusaan wax walboo sun ah ama waxyeelo leh oo dhiigga soo raaca. in ishaada ay soo saarayso 3 nooc oo ilmo ah. indhuhu waxay soo saaraan 3 nooc oo ilmo ah, nooc kastana wuu ka duwan yahay nooca kale. nooca koowaad waa ilmada aasaasiga ah. tani dhammaan noocyada naasleyda ahi waa ay qarsadaan si loo ilaaliyo isha iyo qoyaankeeda, ugana ilaaliyaan boorka iyo jeermiska. nooca labaad waa ilinta falcelinta. noocani waxay ku timaadaa cuncunka, sidoo kale bashasha, bisbaaska, boorka. xitaa waxaa la arkaa mararka qaarkood marka ay jiraan qufac, qosol iyo matagba. nooca saddexaad waa oohinta. noocani waxaa sababa shucuurta nafsiga ah, waxaana sababa murugta, farxadda xad-dhaafka ah, naxdinta lama filaanka ah iyo xanuun jireed. waxaana laga gartaa inay ku jiraan hormoonyo sida prolactin. heerku waa xubinta keliya ee jirka ka mid ah haddana awooda in uu gebi ahaanba iskiis isku cusboonaysiiya. taasi oo micno la ah si uu beerka u dhaawacmo cudur ama hab kale waxaa dib isku cusboonaysiin kara unugyada, isagoo sidoo kale ka soo kordhaya qaybtiisii hore. wuxuuna ku soo noqon karaa cabirkiisii hore, wuxuuna kuu filinayaa shaqooyinkiisii hore.